الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضمان قبلها شرف عليه ما أنتظرنا أيقو هول كتير هذانا وقت جينا قاتيري أنا قلنا وقت وارمنا إلى قادنا الله أقبتين إلى مساق عبراي مضر أبد الدنيا runtii way ahay inaanu shirkan mid ka horeeya oo ragga kooda ka horeeya inaan gaar u yeelano insha allah inta aan joognana waan jecel lahaa inaanu is aragno mar iyo ka badan aad baan idinkaga mahadcelinaya soo dhaweyntiinii aad baa loo dareema inaad xagga dambe laydinku qariyey haddii aad xagga hore fadhin lahaydeen aad baa u shidnaan lahaa maanta barnaamijka aad baa u shidnaan lahaa انت والله انا ولا ماشي كما غير قال حق لنا كلام غنتي دبانتي bulshada adinka horyaalo wali lama hayo meel ay gabdho intay qoriyo qaateen qoriga ka intay qaateen dagaal kale ragga inta dagaal galay inta ayna agoomeeyay oo ragga macni gabdhaha ragoodii ka dilay midba wiilashoodii dilay ibaha soo dhan adikoo qaba haddana marka nabaad inta laga hadlayo tixgelinteeda leedama siin jirin waxaan rabnaa golahan gabdhaha ku jira aqoon-yahana oo ka mida wakiil idinka ah laakiin haddana waxaan rabnaa haddii eebba yidhaahdo nabadaynta meel kasta oo loo tago inaad xibno buuxa ku yeelato xanuunka runta xanuunka dhabta ah ee dagaalku keenay waxaa dareemaya waa haween adinkaa hayey 30 sano soomaali in laisku soo gaaro ilaahay fadligii adinka ayuu wakiil idinkaga dhigo intaa ilmaha quudinayay odaga laftigiisa ilmaha dhalay ilmuhu ka tirsanaa ku tirsana ilmuhu noqon ahaa adinkaa u taagnaa ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo weli fari kama qabo waa laydin baahanya bulshada waa idin baahan tahay waxaan qabaa oo dhab ahaan haddaad ducaysaan oo raggaa gardarrada maalin walbaba waxay idiin gaarsiinaya u ducaysaan guusha waa dhowi marka intaad qalbiga furtaan sida aad u jeceshiin ay ugu mashxaranaysaan markaad tukataan u duceeyo ilaahay inuu tawfiiqda waafajiyo khayr baa ku jira inuu duceeyo ilmihiinii oo kale weeye horyaalkii weeye hoggaanka ayagaa mar walba qabanaya boqona lama ogolaa la yidhaahdaa oo diintii baa ka hor istaagan laakiin in ilaahay hoggaanka mid lagu aayo oo guul dhaliya ilaahay inuu ka dhigo duceeyo in duceeyo ducadina maqbuul weeye waa dhibanaatihiin qofka madluumka ah ducadiisa waa maqbuul aad iyo aad baan u dareemaya xanuuno badan inay idin gaareen waan ogahay hooya ay dhashay waa ila dhasheen waa loo dhaxaa maalin walba dhawaaqun baa soo gaaraya dhawaaqa gabdhaha maalin walba ka soo yeeraya soomaaliya dowlad goboleedyada oo dhan dhawaaq wanaagsan maaha golahan haddii eebba yidhaahdo waxaa ku talagalkeenu yahay inaan dhawaaqyadaa xun aysan mar dambana soo marin ilaahay noo barya inuu arrintaa iyada ah oo aan qalbiga ku hayno in ilaahay noo qaado haddaan is weheshanno guul baan gaarayna allah idin barakeeyo wax alla wixii su'aalaa ayaan xaggiina u soo ridinayaa wixii aad rabtaan inaan ka sheekayno waa idinkaga sheekaynaya dhabaantii inta aan had soo marnay oo hobyo ilaa matabaan meel walba aan tagno safka hore gabdhaha ku jira ayagaa ku jiray ayagaa jikada gelayay ayagaa masharada iyo sacabka tumayo caalamka lulayay markii laga tago meesha magaalo kale sii aadna ayagoo taagan baa laga tegay baabuurtii keenta xataa inay qaado inaysan qaadin baa dhici kartay mararka weeyaan way dhacdaa dhabahaantii inaan isku samirno oo noo dulqaadataan ayaan iska codsanayna وماسنتي جزاكم الله خير ماسنتي أنا وقوة كذا قدي عبد الله واي شركة وحد ما يمرق هالتانو أولا أنا هرج أبو حيان بيلا ورالها
أنت جوني مجال نيروبي جوني ولا قعدت كل ما قعدت نوهي مرة نبين وسيدي عروتي نوهي نوعاتي الدكتور عبدي سلام لك وكارتي تاجر أيربورنا اللي كان غزو مالي إن الدجي الصويحي إنا وحنا إنا نمونين كنترول كورتاوية الله بركة كيسة يعني كيسكم الله خير وأوكل كأربع ماذا أربع بكتيرة أنه جودها مجال شاشة تجمع الناس أيام أرجع أوكل عاقبة دبنا عروسة يوكل عروسة كلام كل الله قوى وكل مسكرا السلام عليكم.